Sigaar cabiddu waxa ay halis gelisaa caafimaadka jirkaaga. Cabidda sigaarka ayaa waxa ay keentaa cudurro fara badan iyada oo dhaawac u geysata ku dhowaad xubin kasta oo ka mid ah jirkaaga. Waxaana sigaar cabidda lala xiriiriyaa noocyo kala duwan oo kansarka jirkeena ku dhaca ah, kuwaas oo ugu horreeya kansarka ku dhaca ee loo yaqaan lung cancer. Sidoo kaleeto waxaa lala xiriiriyaa cudurro ku dhaca wadnaha oo ugu horreeya coronary artery disease. Waxaa kaleeto oo ay keensataa sigaar cabiddu in aad u nuglaato inay kugu dhacaan cudurro ay ka mid yihiin cudurka macaanka ama diabetic mellitus, iyo sidoo kaleeto cudurrada la isku yiraahdo chronic obstructive pulmonary diseases COPD. Waxaa kaleeto oo cudurkan aan ilaahday sigaar cabiddu ay keensataa in aad u nuglaato khatarta ay ugu jirto cudurrada tiibishada iyo rheumatoid arthritis. Haddii aan u gudubno sigaar cabiddu iyo halista caafimaad ee ay ku leedahay dadka ag fadhiya ama ag jooga ama lagu kor cabo, waxaa la sheegaa dadkaasi oo loo yaqaano second hand smokers in ay ku jiraan khatar la mid ah ama u dhow khatarta ay ku jiraan dadka sigaarka cabayo. Si qaas ah waxaa loo xusaa ilmaha yaryar ee reeraha waalidkood uu sigaarka cabaa ka dhashay, kuwaasi oo sigaarka lagu kor cabayahay uu u keensado in korriinka jirkooda iyo sambabadooda si qaas ah ay hoos u dhac ballaaran ku yimaado, iyaga oo khatar ugu jiro cudurrada infectionska ku dhaca sambabada iyo cudurka neefta oo si daran ugu dhaca ilmaha yaryar ee waalidiintoodu ay sigaarka cabaan. Waxaa kaleeto oo halkaasi la isdul taagay in ilmaha yaryar ee sigaarka lagu kor cabahay uusan sambabkoodu si loogu talagalay uusan u korin oo uu ku yimaado dib u dhac weyn. Macno ma lahan haddaba xaddiga sigaar ee aad maalin kasta cabtahay. Waxaa muhiim ah in aad ogaatahay in sigaarku uusan ka samaysnayn ilaa wax sun ah mooyaane. Waxaana la sheegaa kasoo bilow maadada acetone-ka, taarka, nikotiinka ilaa carbon monoxide inay yihiin sun halis ah oo keensan karta xaalad caafimaad darri oo kusoo wajahda. Waxaa la sheegaa in sigaarku uu ka samaysan yahay ilaa iyo 600 oo walxo kiimikaalis ah kuwaas oo dhammaantood sun ah keeni karana kansarrada ku dhaca jirka. Haddii aan isdul taagno waxaa la sheegaa marka sigaarka dabka lagu qabtahay in gubashadaasi ay keensatahay ilaa iyo 7,000 oo walxo kiimikaala falgalkaasi ka dhashay in ay soo baxaan kuwaas oo sun ah keeni karana halis caafimaad. Ilaa iyo 69 ka mid ahna waxaa si toos ah loola xiriiriyaa kansarrada jirkeena ku dhaca sida ay sheegtay hay'adda American Lung Association. Haddii aan fiirino dhimashada waddanka Mareykanka, waxaa la sheegayaa in dadka sigaarka cabaahi ay 3 jeer ka badan yihiin xagga dhimashada dadka aanan sigaarka cabin, iyada oo hay'adda Centers for Disease Control and Prevention ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaan CDC ay sheegtay in sabab laga hortagi karo mideeda ugu badan ee dhimasho sababtahay in ay tahay sigaar cabiddu. Guud ahaan markii la fiiriyo walxaha sababa dhimashada gudaha Mareykanka.